Time to take your seat. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داويال كسر دوادا برامج أن كأجد دونا كل ماذا هريال كإنجليزكا العيار دونا مالنتها بريتاء كل ماذا وحوه الرئي كلن كأحمر دونا كوحدة كبدا عقته توتنهام يسيدو كله كوحدة كبدا عقته وولفز توتنهام يا سودوين يسيد كوحدة كبدا عقته وولفرهامبتون أيضا ربع عيار دونا كلن كوحدة كبدا عقته وايت هادلاند أما توتنهام وسباس ستاديوم سيدو كله وحعي والعيار دونا كوحها كريستال بالاس iyo Aston Villa, Everton iyo Nottingham Forest, Fulham iyo Brentford, Leicester City iyo sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda Southampton, Bournemouth iyo Arsenal ayaa wada ciyaari doona. Kulanka Arsenal ay ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Bournemouth waa kulan aad u xiiso badan. Labada kooxood ayaa dhawaanahan wada ciyaaray ilaa iyo 11 kulan. Arsenal ayaa badisay 8 kamid ah, laba kamid ah barbadhac ay galeen, hal kamidana waxa badisay kooxda kubadda cagta ee Bournemouth. Sidoo kale Arsenal waxa dhaawac kaga maqan hal ciyaaryahan oo la yiraahdo Nelson, walow ay tababar ku soo noqdeen dhowr ciyaartooy oo kala ah Cedric Suarez, sidoo kale Emile Smith Rowe iyo waxa soo noqday ninkii la yiraahdo Fabio Vieira oo Arsenal xagaagan ku soo biiray balse weli aan u ciyaarin wax kulan ah. Arsenal ayaa la filayaa inay kusoo gasho line-up lamida line-upkii ay kusoo gashay kulankii hore ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Leicester City 4-2 ay kaga badisay. Arsenal ayaa badisay dhammaan kulamadii u dambeeyay 5 kulan ee ciyaartay, walow 3 kamid ah ay ciyaartay Arsenal xilligii fasaxa loo yaqaan pre-seasonka, halka 2 kulan oo ka tirsan Crystal Palace iyo Leicester City ay ciyaartay kulamo horyaalka ka tirsan. Arsenal ayaa badisay labada kulanba. kooxda kubadda cagta ee Bournemouth hal kulan ay badisay 2-2 ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Aston Villa kulankii horyaalka lagu furay, balse 4 kamid ah kulamada ciyaartay 3 kamid ah pre-seasonka iyo kulan kamid ah horyaalka Ingiriiska ee kooxda Tottenham oo soo ciyaarday kooxda Man City ay ka badisay. daawade sadaalka bixi kulamada bari dhici doona kooxahaas u kala badi doonaan, goolasha iska dhali doonaan. waana ku mahadsantahay daawashada barnaamijka iyo la socoshada barnaamijkan. sidoo kale insha Allah bari waxaan soo gudbin doonaa kulamada kale ee la ciyaari doona maalinta Axadda iyo sidoo kale Isniinta kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Liverpool.